kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka warbaahinta jariirada qodobada aad wararkeena ku daawan doontaana waxaa ka mid ah kulamo xasaasi ah oo saacadii la soo dhaafay ka dhacay Kismaayo iyo nin masaajid ka soo baxay oo gudaha magaalada lagu toogtay mas'uul ka tirsan maamulka Hirshabeelle iyo wiilkiisa oo xalay si la yaab leh loogu dilay hoygooda ku yaala magaalada Jowhar dhacdadaas oo saakii la hadlahayo iyo madaxweyne Waaro ka hadlay israsaasayn dhaxmartay nin hubaysan iyo ciidamada booliiska saldhigga degmada Dhuusamareeb iyo isu socodka magaalada Muqdisho oo saakay xiran iyo ciidamo aad u tiro badan oo la soo dhoobay wadooyinka caasimadda qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan wararkeena waa isniin taariikhduna ay ku beegan tahay 14 Oktoobar ee sanada 2019 aan ku bilowno gudoomiye ku-xigeenkii amniga Shabeellada Dhexe iyo wiil uu dhalay ayaa xalay si la yaab leh loogu dilay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle weerar bambaana ah oo xalay lagu qaaday guriga uu magaalada Jowhar ka deganaa gudoomiye ku-xigeenkii amniga Shabeellaha Dhexe ayaa sababay dhimashadiisa Maxamuud Axmed Sugaal ayaa xilli uu ku sugnaa gurigiisa lagu tuuray bam gacmeed kaas oo sababay inuu halkaas ku geeriyoodo waxaa sidoo kale la sheegayaa in weerarka uu ku dhintay wiil uu dhalay gudoomiyaha qaraxa ku dhintay oo ay xalay isku meel joogeen gudaha magaalada Jowhar ayaa guud ahaan iska xasilooneed sanadihii ugu dambeeyay marka loo eego weerarada ka dhacay wadooyinka magaaladaas gala 12 bishii Sebtembar waxaa qarax ka dhacay agagaarka deegaanka Gololey ee gobolka Shabeellaha Dhexe lagu dilay gudoomiye ku-xigeenkii maaliyadda ee gobolka waxaa sidoo kale weerarkaas kula dhintay wasiirkii hore ee ganacsiga Hirshabeelle saraakiil ka mid ah hay'ad samafal iyo ciidamo ilaalo u ahay isla maalinkaas weerar ka dhacay isla Gololey waxaa lagu dilay 12 ka mid ah ciidanka Burundi oo qayb ka ah howlgalka AMISOM ee Soomaaliya sanadkii hore ayaa wadadaas lagu dilay xildhibaano ka mid ah baarlamaanka Hirshabeelle kadib markii ay jidka u galeen ciidan ka tirsan Al-Shabaab halkaasna uu ka dhacay dagaal xoog leh madaxweynaha iyo ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle ayaa dhowr jeer dowladda federaalka ee Soomaaliya ka codsaday in laga gacan siiyo dagaalka ka dhan Al-Shabaab iyadoo madaxweyne Waare uu sheegay in Al-Shabaab dagaalkii ay ka wadeen Shabeellaha Hoose ay u wareejiyeen gobolka Shabeellaha Dhexe ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo iskaashanaya ayaa Al-Shabaab ka saaray degmada Owdhigle ee gobolka Shabeellaha Hoose 7 Agoosto waxaana xilligaas kadib ka dhacay dhowr weerar oo ay geysteen Al-Shabaab dhinaca kale madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ka hadlay dilkii xalay loo geystay gudoomiye ku-xigeenkii amniga ee gobolka Shabeellaha Dhexe war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska warfaafinta madaxtooyada Hirshabeelle ayaa lagu yiri madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Dr. Maxamed Cabdi Waare oo ku hadlaya afka golayaasha iyo kan shacbiga Hirshabeelle ayaa ka tacsiyadeeyay geeridii Allah u naxariistay gudoomiye ku-xigeenkii amniga gobolka Shabeellaha Dhexe marxuum Maxamuud Sugaal Cismaan iyo wiil uu dhalay oo xalay u geeriyooday bam gacmeed oo lagu weeraray hoygooda Jowhar madaxweynaha ayaa tacsi tiiraanyan leh u diray dhammaan shacabka Hirshabeelle ehelkii qaraabadii iyo asxaabtii uu ka baxay gudoomiye ku-xigeenkii amniga Shabeellaha Dhexe marxuum Maxamed Sugaal waxaana uu eebbo uga baryay in Jannatul Firdaws uu ku gallado madaxweyne Waare ayaa tilmaamay in marxuumka uu ahaa xubin muhiim ah oo ka baxay maamulka iyo shacbiga Hirshabeelle isla markaasna uu hayay shaqo adag oo muhiim u ah nidaamka dawliga ah iyo hagaajinta amniga madaxweynaha Hirshabeelle Dr. Maxamed Cabdi Waare ayaa faray hay'adaha ammaanka in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u sameeyaan baaritaan dhab ah oo lala xiriiriyo weerarkaas lagu dilay marxuum Maxamed Sugaal sharcigana la soo taago dadkii ka dambeeyay ugu dambeyntii madaxweynaha Hirshabeelle Dr. Maxamed Cabdi Waare oo sii hadlayay ayaa guud ahaan shacbiga Hirshabeelle kula dardaarmay in ay muujiyaan feejignaan dheeraad ah meelna uga soo wada jeestaan Al-Shabaab isla markaasna ay la shaqeeyaan hay'adaha ammaanka sidoo kalena ay iska hubiyaan cid kasta oo ku soo dhaxdhoomanaysa wararka warbaahinta jariirada ayaa daawanaysaan saaxiibayaal qaybihii hore ee wararkeena ayaa ku guda jirnaa
magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaa xalay ka dhacay kulamo xasaasi ah. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa xalay kulan xog waraysi ah la qaatay qaar ka mid ah hoggaanka dhaqanka ee Jubbaland. Kulanka waxaa goobjoog ka ahaa mudanayaal ka tirsan aqalka sare ee Soomaaliya uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, mas'uuliyiin ka mid ah labada gole ee Puntland, guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi, siyaasiyiin xilal ka soo qabtay Puntland iyo Soomaaliya, ganacsato, hoggaan dhaqan iyo xubno ka socda ururada bulshada. Kulanka intuu socday waxaa laga hadlay xaaladda guud ee Jubbaland, isbedeladii ay soo martay magaalada Kismaayo iyo horumarada la sameeyay. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa dhageystay warbixinta hoggaanka dhaqanka siiyeen, waxaana kula dardaarmay ilaalinta amniga iyo ka shaqaynta horumarka. Dhinaca kale, waxaa magaalada Kismaayo xalay lagu dilay nin ka soo baxay masaajid kaas oo ay dilkiisu ka dambeeyeen kooxo hubeysan. Wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka u ah dowlad goboleedka Jubbaland ayaa sheegaya in halkaas lagu dilay sargaal hore uga tirsanaa Al-Shabaab. Ninka la dilay ayaa magaciisa lagu sheegay Cumar Yaqiinudiin, waxaana ahaa sargaal ka tirsan xafiiska dacwadda Al-Shabaab. Sanad ka hor ayuu ka goostay Al-Shabaab, waxaana uu ku noolaa magaalada Kismaayo. Xilligii la dilayay waxa uu ka soo baxay masaajid ku yaala magaalada Kismaayo. Kooxaha hubeysan ayaa ku toogtay bannaanka masaajidka, halkaas uu ku naf baxay, waxaana meydkiisa halkaas ka qaaday dadka deegaanka. Bilihii Juulaay, Agoost iyo Sebteembar waxaa magaalada Kismaayo lagu dilay nabadoono u dhashay Jubbaland, kuwaas oo dilalkooda lagu eedeeyay maamulka Jubbaland. Maamulka Jubbaland ayaa isaguna eedda dilalkaasi dusha ka saaray Al-Shabaab, iyadoona oo ilaa iyo hadda aysan jirin cid loo qabtay dhammaan weeraradii kala duwanaa ee ka dhacay Kismaayo. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa 12 bishan lagu caleema saaray magaalada Kismaayo, munaasabad ay ka qayb galeen madaxdii hore ee dalka, hogaamiyaal mucaarad ah iyo hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale. Dowladda federaalka iyo beesha caalamka ayaa ka soo horjeestay natiijada ka soo baxday doorashadaas ee ka dhacday magaalada Kismaayo, waxaana caleema saarkii Axmed Madoobe ka maqnaa beesha caalamka iyo dowladda federaalka ah. Keliya waxaa dowladda federaalka uga qayb galay Abshir Bukaari oo ah guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare ee Soomaaliya. Qaybihii dambe ee wararka jariiradda ayaa haatan ku sii shaqeynaa. Ciidamada booliiska Dhuusamareeb ayaa xalay toogtay nin hubeysnaa. Wararka laga helaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada ku sugan saldhigga booliiska degmadaas ay xalay toogteen nin hubeysnaa oo isku dayay in uu galo saldhigga booliiska degmadaas. Toogashada ninka hubeysan ayaa timid kadib markii uu isku dayay inuu galo saldhigga, hase yeeshee ay ku amreen inuu istaago ciidamada ilaalada saldhigga, balse uu rasaas ku furay, taas oo keentay inay toogtaan, sida ay noo xaqiijiyeen ilo deegaanka ah. Toogashada ninka hubeysan ka hor ayaa wararku waxay sheegayaan in israsaasayn daqiiqado socotay ay dhex martay isaga iyo ciidamada booliiska saldhigga ku sugan, iyadoo ugu dambeyntii ay toogteen. Ilaa iyo hadda lama oga waxa uu ahaa shaqsiga hubeysan ee isku dayay inuu galo saldhigga Dhuusamareeb ee lagu toogtay, waxaana saraakiil ka tirsan booliiska ay sheegayaan in israsaasaynta dhacday aysan khasaaro dhinacooda ka soo gaarin. Xaaladda magaalada Dhuusamareeb ayaa saakay ah mid caadi ah, waxaana socda isku socodka dadka iyo ganacsiyada kala duwan ee magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Guud ahaan saaxiibayaal, waxaa halkaasi inooga dhan wararkii aad ka daawanayseen warbaahinta jariiradda. Waxaan naga xasuusinaa fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe sara channelkeena si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay kuwooda weliba ugu xasaasisan ee ka dhaca gudaha. mahadsanidin.